ganacsigaaga ama magacaaga inuu ka soo muuqdo Google search-ga ama haddii Google lagu qoro in ganacsigaaga uu soo baxo waxaad ku heli kartaa macaamiil ama magacaaga ayaa kor u kici kara. Haddaba maanta waxaa muuqaal ka samayn doonaa sidee businesskaaga ama ganacsigaaga ama isla magacaaga uu uga soo muuqan karaa Google. Dhammaysa muuqaalka channelkan ku soo biir. channelka waa channelkii dhalinyarada waxaan iskula wadaagnaa digital skills. يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب سنة. Okay, si aan u sameynaa business profile waxaan ku qoraynaa Google-ka Google My Business. Google My Business ay waxaan ku qoraynaa Google-ka. Okay, waxaan soo baxay ka ay ku qoran tahay google.com ama Google Business Profile. Okay, markaa ku dhufano okay qaabkan ay u soo baxaa Google Business Profile-ka marka aad samaysanaysid waxaan leenahay marka manage now markaa dhahno waxaa soo baxaya intaa marka waxyaabaha dhan ayaa inaa buuxina noogala baahan yahay. Kow business name inaan sameyno. Okay, business name tusaale hadda marka magaca inaan meesha iskaga qorno anigoo kale hadda waxaa ku qoray do cleaning service oo kale. Okay, magacaaga haddii ay magacaaga tahay ama businesska aad u rabto magaca ayaa halka ku qoray continue aa leedahay. Okay, waxyaabaha uu qabto maxaa la dhahaa saddexaas midkood tusaale ma online retail miya oo tafaariiq ayaa waxaa ku gadaa si online ah ama local store ah oo location leh ama service business oo adeeg bixiyo. So marka tusaale ahaan waxaad doortay service business maadaama hadda midka isticmaalayno uu service yahay. Okay, si businesskaaga category oo ku jiro ay halka ku qeexaynaa marka business category-geena tusaale waxaa ku qori karnaa cleaning oo kale. tusaale hadda anigoo kale waxaa ku qornay maxaa la dhahaa inaan clean gareeno fadhiga waxyaabaha noocaas la xiriira. Okay, waxaan sii dhahaynaa next. Okay, meeshaan waxaan sameynaynaa area-da aan rabno si hadhow location iyo map oo usoo baxo aad businesskaaga xataa Google map aad kusoo darto oo qofkii haddoo dhaho best cleaning near me, best dental near me, tusaale best hospital near me, best photography near me. So marka adduunka waxay aad wax walba ee rabaan ay ka raadiyaan Google-ka laakiin Soomaalida inkastoo ay sidii hore dhaamaan iyagana information-ka dad badan ayaa ka fiiriyo inay website ama Google My Business Google Map inay fiiriyaan si ay businesskaas ay macluumo dheeraad ah uga helaan. So marka meeshaan waxaan ku qoraynaa area-da tusaale hadda Muqdisho kale ka soo qabo hadduu ku yaalo. Okay, waa ku sii dari kartaa location mapka ama degmada ama xaafadda ama wadada hadda meeshii ay suurtagal tahay si hadhow aad qaybta mapka ama qaybta near me-ga uga soo muuqato. Okay, hadda marka waxaa joognaa kan labadaa waa soo dhameynay waxaa leenahay next. Okay, meeshaan waxaa gelinaysaa kow numberkaaga haddii businesskaas uu leeyahay website ama haddii aad adiga shakhsiyan ah website aad leedahay. So marka haddii website aad gelisid optional waaye qasab maahan haddaan website lahaynin waad iska dhaafi kartaa laakiin websitekaas wuxuu kaa caawin doonaa waxyaabihii websiteka ku jira sida about us-ka, contact us-ka, home-kii iyo micnaha in uu soo dhigo si automatic ah in uu soo geliyo waxaa la dhahaa Google-ka search-ga. Okay, marka hadda tusaale anaga number aan gelinaynaa. Okay, waxaan sii leenahay continue. Okay, continue markaa dhahna halkaan ayuuna keenay waxaa la rabaa in nala hubiyo waxaa halkaan gelin doontaa addresskaaga tusaale addresskiyo kale inaad gelisid maxaa la gobolkii iyo postal code. Okay, waxyaabaha markaa buuxisid waxaa sameyn kartaa inaad dhahdo verify letter ama in aad sii socono. Okay, maadaama anaga example tahay verify letterna waa dhihi karnaa horena waa sii socon karnaa. Okay, qaabkaas ayaa u verify garaynaysaa haddii call noqoto ama haddii text noqoto. Okay, haddii uu ka soo daahiyo inuu ku soo diro code kane waa ku celcelinaysaa ama waqtiyo oo
xilli dambe oo kale ama waqtiyo qaar ay ku tijaabinaysaa. Okay, marka aad verify soo dhahday halkan ay ku keeni doonaa ama haddii aad dhahdo verify letter. Okay, marka qaybtan waxa waaye profile-keeni ayaan customize gareynaynaa ama ayaan dhisaynaa. Marka waxyaabahan oo kale ay ku soo xulaa hadba waxay ku xiran tahay category aad gelisay. soo marka waxyaabahaas oo kale haddii waxyaaba aad rabin oo kale waa ka saari kartaa. Okay, waxyaaba kale tan waa ku soo dari kartaa. waxaan leenahay marka next. Okay, next marka dhahno waxaan xuseynaa maalmaha aan shaqeyna business-keena haddii uu yahay 7 day, haddii ay tahay 5 day ama haddii ay tahay 6 day. Okay, markaas oo kale marka waxaan leenahay next marka dhahno halkaan ayaan keenay. Okay, meeshaan waxaan ku qoraysaa description oo business-kaaga qeexayo hadba waxaa haysataa ilaa 750 words. waxaad soo gelinaysaa halkaan sawiro kuwaasoo still soo jiidan karo in qofka uu website-kaaga ama number-kaaga uu soo waco. marka halkaan waxaan gelin karnaa any posters ama images oo business-kaaga u diyaarsan. Okay, waxaa leenahay marka anaga maadaama sample tahay hal xabba iska soo gashanay. Okay, qaybtaas markaa ku dhufana marka aad wuxuu ku leeyahay xayeysiin u sameey maxaa la dhahaa Google search-ga. marka Skype ayaan leenahay. Okay, qaybtan waxa waaye business email inaad ku sii xiriirisid. soo marka anaga waxyaabahaas dhan Skype ayaan leenahay waa ku xiriirin kartaa. Okay, marka haddii aad qaybahaas dhan soo gelisid maxaa la dhahaa aana verify gareysay ama website-kaaga iyo number-kaaga waxyaabahaas dhan aan soo verify gareysay waxaad leedahay continue. markaas continue marka dhahno wuxuu ka soo muuqan doonaa maxaa la dhahaa Google My Business. soo marka anaga weli maana verify gareynin. soo markii aad verify gareyso wax walba oo qaybtaas ay ka soo muuqan doonaan. soo adina si lamid ah waxaad sameyn kartaa business-kaaga in aad u sameysid Google Business Profile. Okay, tusaale haddii aniga magacayga halkaas ku qoro waxaa soo baxayo social media-hayga iyo waxyaabo la xiriiro YouTube-keena iyo meelaha waxyaaba qaar aan social media soo gelino. marka business-kaaga ama magacaaga u sameey business profile si aad si organic ah uga soo muuqatid Google search-ga. waxaan rajeynayaa muuqaalka wax uu inaa ka faa'iiday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.